ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميل كستو أد جوجتان سومالي هبين ونكسن عاوة وبرنامج كيني وانا دكتور وانا قلت رجلني إن كاغشة كينو أما وحي هدب عصب برشدنا يوبا هانتا إن كلا هذلنا عاوة هبين سوق ليس خميسة برنامج كينو وبرنامج وانا دكتور فضلا داوده هدي aad nagu cusubtahay waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saartid like saartid share kan hanaga iloobin barnaamijka caawa daawaha inoo saaran daawaha dad baa yaqaana dadka qaarna waxay u yaqaaneen malaha digsiga waxa weeyaan inaan ka hadalno coronavirus xanuunka loo yaqaano ee ka dilaacay qaarada Asia gaar ahaan dalka China maadaama aan aqoonteedu leenahay inaan bulshada la wadaagno waxa uu yahay xanuunkan waqtiyada la helay inta qof ay qaaday qaababka loo kala qaado waxyaabo noocaas mar kale waa Dr. Sakhawuddin waxaad nagala socotaan waa Sakhawuddin channel sida daraadeed dhamaantiin waxaan idinka codsanaynaa haddii ay tahay markii ugu horeysayna soo booqatay inaad subscribe-ka aad naga iloobin ilaahay baa mahad leh oo suurto geliyay inaan kulamo noocan la wadaagno iyo aqoon bulshadeena qiimaha leh xanuunkan ama viruskan la yiraahdo coronavirus waxa uu aad uga dilaacay dalka China gaar ahaan magaalo xeebeedyada cunooyinka laga cuno badda seafoodka ayuu aad uga dilaacay walaalkayga dhageysanayo Soomaaliyeed maadaama aan kugu sharaxayo luqadaadi hooyo fadlan aad ila soo qaada qalimo iyo warqado si aad u noodgareysatay dhibaatooyinka uu leeyahay iyo ma garanaysaa xaaladaha lagu kala qaadi karo iyo waxa lagu xalin karo sida looga hortagi karayo xanuunkan virus weeyaan dawo male marka koowaad taa ugu waxaana loo yaqaanaa coronavirus walow loo bixiyay sanadihii dambe ee 2020 ama 2020ga novel coronavirus xanuunkan waxaa la ictiraaqay ama la ogaaday waqtigii ugu horeysay waxay ahayd 1960 iyadoo laga helay wadamo fara badan oo qaarada Asia ah xanuunkan waxa uu inta badan ka dhacay ku dhacay berigii hore xanuunkan waqtiga aan sheegayay 1960kii xanuunkan aynu sheegayno waxa uu ku dhici jiray xayawaanada sida geela ma garanaysa kibiliga looda waxyaabo la midka ah laakiin waqtigan hadda aan taaganahay waxa uu haleelay ama uu ku dhacay bini aadamka sida daraadeed injiinka ama familku ka kooban yahay ayaa aad u ballaaran marka xanuunkan waxa aad loo ogaaday inuu jiro bishii December ee 2019 ee tagtay laakiin waxa si dhab loogu shaaciyay oo loo dunida loo soo gudbiyay ee dalka China ay wasaaradda caafimaadkeeda ay soo gudbisay 2020ka January 6deeda xanuunkani hadda aan idin hadlayo bisha gudaheed tirada qabta markii laga hadlo aad buu batay tirada xanuunkan qabta waxa lagu sheegaa tiradiisu inay gaadho 2800 qof inay ku dhacay xanuunkan 80 qofna way u dhimatay xanuunkan darkaysan qaarada la yiraahdo Asia gaar ahaan dalka China magaalo xeebeedka tirada uu marka xanuun aad u faafidiisu waa sida hergabka oo kale marka corona hergabka calaamadihiisa ayuu leeyahay xanuunkan
wuxuuna ku dhacaa respiratory system qofku wuxuu yeelan doonaa calaamadihiisana ka sheekeynaynaa symptomska calaamadaha horta waxaa ka horeeya xilli huriska xanuunkan uu leeyahay 10 ilaa 15 cisho way ku soo baxayaan calaamadihiisa tusaale ahaan qofka haddii uu ka yimaado iminka China oo kale waa in la karantiilaa 15 cisho in meel lagu hayo haddii 15 cisho qofku ay calaamado kaga soo bixi waayaan xanuunkan qofka ma hayo waa la sii deynayaa dadkii dhageysanaya wadamada kala jooga qof waliba China ka yimaado waa in 15 cisho meel lagu hayaa si loo ogaado inuu xanuunkan qabo 15 cisho ka bacdi haddii calaamaduhu soo bixi waayaan wax soo socdo male bukaankan waa la sii deynayaa waa qodob waa incubation period hargabka wuxuu ku bilaabanaa marka calaamado wuxuu leeyahay sida hargabka diif sangoror ma garanaysaa qufac yaro ma garanaysaa dry waliba waa non productive cough qufac marka laga hadlayo laba loo kala qaadaa waa product iyo non product kani qofkan uu iska qufacayo xuma soo saaray xumad buu leeyahay dhunta xoogaa yara casaanaysa sore throat baa lagu arkaya kadib wuxuu u gudbayaa lungiska marka koowaad wuxuu ku bilaabanayaa upper respiratory marka dambe wuxuu u gudbayaa lower respiratory systemka dabadeed waxaa bilaabanaya wax loo yaqaan pneumonia of oo qofkii naqaska ku yara dhagaya xumad zaraa'id gasho sidaa darteed qofku waxaa ku dhaca wax loo yaqaano lungs dysfunction ugu dambeyn wuxuu sababayaa viruskan wax loo yaqaano lungs dysfunction dhalalayaa lungs dysfunction sidaa daraaddeed marka waxaan u baahannahay xilliyada iyo waxyaabaha ka qayb qaadanayna waan sheegi doonaa maadaama qofku lungs dysfunction uu keenayo sababadii ay shaqayn waayaan eventually qofku ugu dambeyn uu dhimanaya marka sidaa daraaddeed tirada hadda la sheegay saxda ah waa 2800 80 qofna uu dhimatay inta kale waa yani lala tacaalaya waana xanuun virus ah marka koowaad wuxuu ku bilaabanaa waan idin sheegay calaamadaha hergabka ugu dambeyn sababada uu gudbaya haddaba waxaan rabnaa xilliyada inta badan viruskan la arka horta kow dadka ku nool wadamada ama climatekeedu ama cimiladoodu aadka u kulul yihiin viruskan ma imaanaya taa ku bishaaraysta wuxuuna imaadaa xanuunkani xilliyada qabowga ah tusaale ahaan from December ilaa iyo bishan dunida meelaha qabowga ka jira ilaa March laga gaari ilaa April qabow bay ku jiraan laakiin anaga dhinacan kale kuleel baa loo yaqaanaa marka xilliga qabowga ayuu viruskani inta badan yimaadaa wadamada kuleelka ah way ku yaraanayaan uu ka badbaadaya insha Allah hadii la yiraahdo sida cilmigu inoo sheegayo kuma noolaan karo viruskan loo yaqaano coronaviruska oo hadda loo magaciiyay loo bixiyay novel coronavirus oo virusku ugu awood badnaa ee jira way sida daradeed xanuunkan maadaama uu sida yahay wuxuu ku dhacaa waa maxay upper respiratory ku bilaabana lower respiratory xilliyadu imaadana waa sheegnay waxaan rabnaa marka qofkan xanuunkan sidee lagu rabo in lagu ogaado yaa u nugul waxa u nugul dadka dhaqaatiirta daweynaysa dadka qaba xanuunkan waxa u nugul dadka kula nool magaalada ama deegaanka xanuunkan uu ka jiro waxa u nugul cid waliba oo difaacidu u liito waxa u nugul cid waliba aan aqoon u lahayn caafimaadka because ma tagaranayso qaabka wax lagu kala qaadayo ma fahanti fadlan hadii ay daawanaysa iloomi subscribe-ka wali waynu soconaa sharaxaadii gaarsii bulshada inteeda kala share like gaarsii xasba dadka walaalaha la wadaag waa virus dadka dilaya marka ayada si aan dadkeena ula wadaagno uguna digno xanuunkan maxaa lagu kala qaadi karaya waa close contact isku soo dhawaash waxyaabo lagu kala qaadi karo hadii la salaamo hadii cuno la wada cuno hadii koob shaah la wadaago hadii la isku hindhiso hadii la isku qunfaco hadii la isdhunkado waxaas oo dhan waa lagu kala qaadi karaa dhunkashada caadiga lagu kala qaado iska daayay koob haddaad wax ku wanto areadan hadii meel qof uu joogo ad qaad hadduu immunity-gaaga uu low yahay horaad ka qaadaysaa waa xanuun aad iyo aad uga dilaacay dalka China walow ay dhahaan culimadii islaamku ay u qaatay yani ay leeyihiin maalin dhaweed China waxa lagu gumaaday dadkii islaamka ahaa marka waa ciqaab rabbi u soo diray because of dad ilaahi caabudayo ilaahi ka baqaya alla jiritaankiisii ay xogaa far ku godeen ma garanaysa gumaadeen ayaguna ilaahi xanuunkaas u soo diray oo maanta wad arkaysaa heer waxa la gaaray wadamo fara badan oo dunida Mareykanka maanta waxa maqlay Mareykanka uu kala baxaya wadamo yani muwaadiniintiis Ingiriiska Faransiiska wadamo fara badan Soomaalida laakiin yaa la baxay ilaaha u maqanay ya وأنا مركا ولا له إن شوقنا وحنا عنا إلهي كبد بهذه حنونك ولا لك داونا يا حنونك وحدة وعملها دودي السوق وإن لكرنتي لقفك هذا محاد عيا هدي قف ذلك شينها كي ما هذا وإن شن 8 دقيقة من الوحية 15 minutes sorry 15 minutes يعني هن شن 8 عش
15 days ka haddii calaamadu ka soo bixi waayeen qofka sida magaalada galo ma qabo virus laakiin viruska xanuunkani muddadaas haddaadan qofka haynin miinis haddaan ka baaraya kama helayo kan laga aqbalay sida daraadeed waxaan rabnaa insha Allah haddii la yiraahdo walaalayaal xanuunka dhibaatadaas uu leeyahay waxa laga hortagi karaa in nadaafada lagu dadaalo lagana fogaado dadkana la karantiilo ma garanaysa difaacagan la dhiso ma garanaysa dawooyin fara badan oo aan xanuunkan anaga wax uga tarna maanta Soomaaliya dalkeena ma yaala Ilaahay baa xalkeena og hal laga fikiro hal laga dadaalo Soomaaliya gaarsii dhibaatooyinku wacay uu sheegay waqtiga la sheegay iyo wuxuu yahay waana sheegnay waa markaasi waa virus dhibaato u gaarsiinaya jirkaaga bini aadamka waxyeelaynana ugu dambeyn sababadaada walaalkayga muslimka oo idaawanaya gaarsiya asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka naga iloobin waa mahadsan tahay waa walaalka Dr. Sakhawuddin oo caaw ku soo gudbiyay fariinta viruskan ku saabsan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan